الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها قولها وسير هذا ما يركع عاصمة قدوميها بانجيها سراكيش عيدا ماذا كان عسدتدي والشرليدة يدا ما شغالها وساردا مع القشقي وشدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة كوباد إله بقى محله marka xigana waan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan joogo munaasabadan aynu maanta ku calaamadinayno dhulkii industrial zone-ka ee magaalada Hargeysa. ujeedada ugu weyn ee ugu joognaa maanta waxa weeyaan sida aynu u calaamadin lahayn dhulka mustaqbalka ay yeelan doonto magaaladan Hargeysa oo ka kooban 218 block. waxaa ku kooban hadalkaygu yahay roolka ay wasaaraddu ku lahayd ama ku leeyalan doonto dhulkan industrial zone-ka. sida ka muuqata wasaaradda magaceeda wasaaradda hawlaha gudgureynta ee dhulka waxa loo baahay waa dhulka anagoo iska kaashanayna meeyarka magaalada Hargeysa amba caasimadda Somaliland. waxaa loo asteeyay inuu noqdo halkan aynu maanta joogno oo ah biyo xidhaankii magaalada Hargeysa oo ahaa dhul danguuda. waxay soo martay maraaxiil kala duwan, meelo kala duwan baa ayaa la gaadhay oo la doonayay in laga dhigo industrial zone. laakiin waxa muhiim ah inta aan la qaadan tallaabo in wax la darso daraasad la sameeyo siduu sheegay injineer Ciise. daraasada la sameeyay daraasada koow waxa waa dhulka industrial zone-ku biyo u baahan yahay. maadaama biyo u baahan yahay waxaynu garanay Hargeysa halkee biyo ugu dhow waxa la isla gartay inay noqon karayso biyo xidheenka hore Hargeysa. number 2 waxa la eegayay kaabayaasha kale dalka sida wadooyinka intee u jirsanaysaa oo iyadana waxaad ogtihiin wadadii weyneed ee Hargeysa ee qabanaysa Ethiopia waxay noo jirtaa imika in ka yar 2 kiiloomitir bay noo jirtaa. marka taa lafteedu waxay ahayd doorashada labaad ee nu qaadanay in goobtani noqoto goobtii loo asteeyay aagga warshadaha ee magaalada Hargeysa. waxaa kaloo ka mid ah goobta waxa ku dhow meelo buuraa iyo jexjeexyo. dhulka buuraha iyo jexjeexyadu waxay ka mid yihiin inta badan dhulka loo isticmaalo danta guud. waxay ka reeban yihiin la isticmaalo si bareefada loo isticmaalo si waafaqsan xeerka maamulka dhulka magaalooyinka xeer 17/2001 oo isbedel lagu sameeyay 2018. marka duruufahaas oo dhan markaanu tixgelinay waxaan u aragnay inay halkani munaasib ku tahay inay noqoto aaggii warshadaha ee caasimadda Somaliland ee Hargeysa. waxaan rajaynayaa tallaabo kastoo la qaadaa waxay leedahay saamayn taban iyo mid togan labadaba. faa'iidana way soo kordhisaa, khasaarana way keentaa. laakiin waxaanu ku dadaalaynaa inaanu yarayno khasaaraha ay keenayso. kole waxaan jecelahay dhulkii Somaliland maanta gacanta dawladdu kuma jiro, laakiin dastuurka qaranku wuxuu awoodda maamulka dhulka gacanta siiyay dawladda dhexe inay maamusho. waxaa suurtagal ah dhulkan aynu joogno in mas'uuliyiin amba dad muwaadiniin ay sheeganayaan arrinkaana insha allahu wixii ka yimaada inagoo weegayna shuruucda iyo xeerarka xalku wuxuu yahay dawladda dhexe iyo dawladda hoose diyaar waxay u yihiin inaynu arrinkaa wixii ka yimaada tabnaan ka yimaadana inaynu ka wada fadhiisanno oon jecelahay wixii nagaga yimaada inaan xal ka gaadhno. waxaa kaloo aanu jeclaysanay in dooxa magaalada Hargeysa muddo loo jiirsado xogaa ilaa 500 mitir ayay insha allahu ka fogaan doontaa dhulka industrial zone aynu u qorshaynay. intaas waxa weeyaan waa ujeedada aynu maanta u joogno iyo roolka wasaaradda. haddaan ku yar daro qodob labaad oon isleeyahay industrial zone-ku faa'iidooyinkiisa waa la tilmaamay. anu waxaan ka mid ahaa guddida dhaqaalaha ee golaha wasiirada. marka warshad laga hadlaayo caqabadda koobaad ee warshadaha Somaliland haystay wuxuu kow ka ahaa dhulka kow ka ahaa. maanta insha allah waxaynu rajaynaynaa inaynu ka maarmi doonno baahida dhulka. caqabadaasaynu xalilnay. caqabadda labaad waxay ahayd xagga tamarta energy-gana waxaa isleeyahay goobtani way xalili doontaa mustaqbalka dhow. waxaynu rajaynaynaa inay ka abuuranto ilaa 4,000 oo fursadood oo shaqo ah inay ka abuurmaan meesha inaynu maanta joogno oo faa'iido u noqon doonto dadkeenna iyo dalkeennaba. waxaa kaloo is leeyahay
waxay wax ka bedeli doontaa waxa lagu maalgelin doonaa dhulkan lacag ku dhow ilaa 300 milyan oo ummadda Soomaaliland ay maal gashan doonto waxa kaloo wax laga bedelay maamulka dhulkan ma dhici doonto dhulkan in qof la iska siiyo dhulkan wuxuu noqon doonaa soon marka hore calaamadsan oo loo yaqaano oo fenskiisii leh dawladda dhexana insha Allah way ku dadaali doonto in marka hore fenskii lagu xidho loona aqoonsan doono abadiya inuu ahaado dhulkaasi dhul industrial zone looma isticmaali doono wax residential ah amba wax ka baxsan ujeedada loogu talagalay industrial zone-ka waxa kaloo aan isleeyahay waxay faa'iido u noqon doontaa maalgelinteennii dhimatay inta badan la gelin jiray dhulka waxa la yidhaahdaa waa dead investment marka lacag dhul la geliyo faa'iido u leeyahay ma jirto waxay suurtagal ka dhigi doontaa in muwaadiniinta Soomaaliland ay maal gashadaan mashaariic shaqo abuur leh sababtoo dhulka marka la maalgeliyo dhulku waa iska taagay hal fursad oo shaqo ma abuuro marka taana waxa isleeyahay waxbay ka tari doontaa oo dadkii dhulka u qaadanayay inay maal gashadaan markay ogaadaan dhulkiiba inay dawladdu bixinayso oo qofkii warshad u baahnaa dawladdu siinayso waxay suurtagal ka dhigi doontaa inuu dhulka laftiisu qiimihiisu hoos u dhaco oo maalgelinta dhulka meesha ka baxdo waxa kale oo aan isleeyahay waxaa daraasaddan soo ogaanay inta badan dhulka noocan oo kale ah warshadaha laba loo qaybiyaa waa light industry iyo heavy industry amba warshadaha waaweyn iyo warshadaha yaryar halkan qorshaha koowaad aan isticmaalaynaa waa light industry-ga weeyaan oo warshadaha yaryar oo inta badan aan khatar ku keeni karaynin xagga deegaanka runtiina waa arrin dawa oo waajiba inaynu dawlad ahaan hubinno horumarka iyo deegaanku waa laba shay oo u baahan mar kastaba iska hor yimaada laakiin waxaa la sameeyaa harmonization in la iswaafajiyo diyaar waxaynu nahay wixii khatar deegaanka keeni karayana inaynu ka hortagno halkan looguma talagelin in laga dhiso warshadaha hargaha warshadaha sibidhka iyo wixii kale iyo kuwa chemicalka intaba sidaan ku aragteen presentationkii laydi siiyey marka runtii waxaan jecel qodobkaas saddexaadna inaan ku daro aad iyo aad baan marka koobaad idinku mahad celinayaa marka labaadna aad iyo aad waxaan soo dhaweynayaa uguna mahad celinayaa wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha oo runtii annaga nagu daba taagnayd inaanu helno dhulka iyo inay arrinkani maanta riyadana inoo suurto gasho aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waana idin salaay bandhamaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدي ما سني هاي وسيرك وزارة هؤلاء جزء كي يجريين تا وحاط